السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سود دوادا habeen wanaagsan hala soo dhawaado. Qisadan raba inaan ka sheekeeyo qisadan oo ku saabsan qolo jecel ku dhacay iyo qolo isguursatay. qisada sidan tan bay u dhacday. horta waxaan idin leeyahay Eid Mubaarak Eid wanaagsan. intaan qisa iina gelin waan ina salaamaya Soomaali meel kasta ay joogto inaad share gareysiin oo subscribe saartiin waan rabaa. وانا إيد ونأكسب بان إنلي إيد مبارك قصة عدد قصة مركز سنة رواينا إنيلا وذاقه كبر بيكون عدد قصة صوماليات أو صومالي جوكتو أو هذا الدبي كسوغن جبت أس أرضي بيهات سكول بي آخر سنترتي يدا سكول برانا يسايا ويل يرى أرضي إسلاهين بي إسجعلاين لكن ويل كيساقن أرضي بو أحول وموهاينين جعلك waxay wadwadeen wax la isku guursada la waayo oo isjecel oo waxbarashada ku jiraan gabadh maalin maaliyaha kamid ayaa gabadhii iyo gabar saaxiibteeda iskuulka ka soo baxeen ayagoo gurigooda u socdaan oo gurigooda u lugaynayaan ayaa waxa gadaal ooga yimaaday nin musey oo lacag loo boos oo gadaal ooga yimaaday ninkii wuxuu ku yiraahday gabdhow gaariga ma inagu qaadaa gaarigan inagu qaadaa buu yiri gabdhiha bay dhaheen gaarigu horay ugu sii qaaday gabar buu ka helay marka gabadha wiilka jaceelka la waday ardayda uu ka helay labada gabdhood mid kamid uu ka helay oo mid sheekada jaceelka ninka kala la leeyahay ayuu ka helay adigu wuxuu yiri adeer lambarkaada rabaa gabadhii adigu way siisay lambarkii ka dambe wixii la hadli jiraba way u sheegtay inay nin jaceel la leedahay laakiin ay lacag isku laayihiin adi meesha calaf baa socday odigii reerkoodu ka doonay reerkina reer guriga cariisho iskaga jiraan bay ahaayeen reer cariisho ku jiraan bay ahayn gabadha reerkooda asxaabay marka cariishii wuxuu yiri gurigan ina dhisayaa wuxuu yiri gabadha ugu dara waa yahay baalire reerka guriga u dhisay kadibna gabadhii uu doonay gabadhii waa aroosay arooskeedii waxay u yeertay wiilkii ay horay u jecleed bay u yeertay waxay tiri waa la aroosayaa wiilkii cameraman buu soo qaatay markii yaraa ee jeceelkeeda ahaa oo lacagta isku waayeen cameraman buu soo qaaday wuxuu yiri arooskiina ana ina duubi arooskii uu duubay waxayna ugu sheekaysay markuu arooska duubay wiilkan abtigayaa dhalay ugu sheekaysay ma ay dhihin wiilkii jeclaaway ma ay dhihin waxay ugu sheekaysay wiilkan waxay tiri abtigay baa dhalay arooskeena duubaayo kadib arooskii uu ka duubay kadib 2 bilood bay arooskii ay joogeen ay macnaha ay arooska ku jirtay markay 2 bilood ka soo wareegatay ay maalinkii dambe duqeed waxay ku tiraahday odigi duqa aroos wiilkan yaro abtigay dhalay oo arooskeena saaragta cajalada noogu duubay waxaan rabaa bay tiri inaad Dubai u dirto oo fiisaha iyo tigidhka ka bixiso marka way ka qarinaysaa inuu jeceelkeedu way ka qarinaysaa abtii baa dhalay leedahay adin ninkii odigu u naxariistay wiilkii yaraa fiisu u soo qabtay passport u soo hagaajiyay tigidhku Dubai uu ka shubay Dubai baa wiilkii yaraa la geeyay wiilkii yaraa Dubai buu shaqo ka helay lacagti meel kala muu marin meel buu ku dhurtay markii 2 sano gabadh la qabo wiilkii yaraana 2 sano uu Dubai ka shaqeynayo iyo maalinka dambe wiilkii yaraa gabadh soo wacay wuxuu ku yiri hebla ilmo ma dhashay ma yay tiraahay wuxuu yiri lacag waa noo diyaar ani aadi markaan wax isqabsan karnaa duqa iska soo fur ani imo ana tigidhka shubay gabadhii duqa waxba uma qarin waxay tiri aniga Dubai u socdaa adiga ku marrabi jeceelkeyga waa Dubai joogo mid kalena ma aha waa wiilkii berigii waxay tiri cameraman-ka ahaa wiilkii aan ku dhihi jiray tiri abtigay baa dhalay wiilkii aan ku dhihi jiray tiri tigidh u goodifiiso si tibaa dhalay Dubai u diraan ku dhahay waayay waxay tiri wiilkaas iiga dhagan yahay aduqrow 2 sano soo isma qabnaha wixii inta ka badan waxay tiri nolol kulma qaadan kari inaa ifurto warqadayda isis yaan rabaa bay tiri yani kuma qayaan hay runta ugu sheegaya bay dhahday duqi oo yaabay wada gabar soo taagana timxuu sameyn wuxuu yiri abay hawalwalin taasaa go'aan u gaartay
anigana waxba kaama hagranay warqadaadana waan ku siini fiisana waan ku siini tigidna waan ku siini dubaydii ninkaad jeceshana waan kuu tiri reerkiinana xoolihii aan berigisi waxba kama qaadanayo dar ilaahay baa u saamaxuu dhawaxa duqi uu kaga dhaweeyay wixii oo dhan ciddii lacag waxba kama ceshanin gabadh tigid u gooyay fiisuu siiye dubay u diray warqadeedana wuu siiyey gabadha wiilkii yaraa bay u tagtay way isguursadeen wiilkii yaraa iyada waxay wado wiilkii yaraa iyadu way isguursadeen kadib duqi markay labada ruux isguursadeen maqlay duqi waa waashay duqi wuu waashay jecel uu la waashay wuu qarqarway xoolihiisana maantay gabadh tagtay xoolihiisina way dhamaadeen way iska dayacmadeen duqina wuu waashay gabadhii markii sanad la qabo sanad markii gabadh dheeraad la qabo oo cunug ay dhashay ay maqasho duqi wuu waashay gabadhii naxdin oohin waxay u ooyn nolosha ay maanta gaartay iyo heerkii ay gaartay duqaas ay ka soo fircameen xoolahaas duqaas asxaan u sameeyay iidi macalinkeeda mas wiilkii yar markaa qabay ayada nolosha ay ku jiraan duqaas soo gaarsi gabadhii way oo duqii isoo raadiyay tirahay waa loo soo raadiyay way la hadashay waan ku iimaanay tir inuu xanuunsayo weeraya loo sheeg oo xoolihiin ay dhamaadeen duqu meelaha iska jiif kadib gabadhii diyaarad bay qaadatay duqi bay meesha ugu tagtay ay soo qaaday dubay bay geysay dhakhtar caafimaad bay u raadisay dhakhtarkii madax maskaxday u raadisay way daweysay ayada ninkeeda markuu arkan uu bogsaday ayadii ninkeeda markuu dubay ay geeyeen wuu bogsadaa duqi dabadeedna duqi shaqaa loo raadiyay shaqaa loo helay duqi wuu shaqaystay ka dambana gabaray u raadisay way u aroosisay marka asxaabay jecel taariikhtiisa meelahaas wax marmariye asxaabo qaar waxaa jirtaa calaf haday horaan isku waayeen gadaal dambe isleen abaal waxaa jirtaa nin abaal gale Soomaalida hore waxay u dhihi jirtay nin abaal gale waa la arkay laakiin soo gudo waa la waay boqolkiiba boqol soo gudana waa la arkay dadka aad iyo aad u qalbi fiican oo daacad abaal markii loo galo way gudaan ayagana barkooda marka waxaan wax gudayn waa doqon ma garateen asxaabay jecel qisadiisa dadkaas u soo ugu dhacay anigu waan ina salaamaya iid wanaagsan baan ina leeyahay iid mubaaraga ina leeyahay share garaya subscribe saar beeshka kala ku dara marka waan ina salaamay waana ka baxay qisadana intaas ay noogu joogtaa tan intaan mar kale ku kulmi doono tu kale sidaas iyo nabadgelyo